aniga ay raadinaya ama cilaajkii daartooba raadinaya in cilaaj kale ay tageen kadib quraansaarkii marka laga soo baxay oo banaanka la yimid oo maaragtay dadka ay suuraysanayaan oo dadkii meesha ka soo baxay qaar kamid ah dhahayo war maxay tahay meesha oo meel waxay ahayd oo meelihii ugu shidnaa bay ku jirtay maxaa dhacay qaar kale oo meesha jooga ugu jawaabay yiraahdeen wiilka yar oo Madiina jooga baa ninkan afduubtay xoogay subxaanallah walaal aniga mooryaana ma yaa waxna ma xoogi dadkana ma xoogi hadalkaas macnihiisu wuxuu dhigmaa uu xoogay ama ninkaas afduubtay dadkii wuxuu dhigmaa waa sixroole wey dadka sixir uu ku leexsado marka waxaan anagu shaqo kuma lihin marka waxaan rabaa insha Allah taala galabtan aan idin soo bandhigo Fidel Albari sida aad aragteenba qoraalka halka ku qoran ama lidka lagu soo qoray live-ka korkiisa ama cinwaan looga dhigay qoraalka kore dhismaha cusub hadda aan idin tusi doono insha Allah taala aan ugu talagalnay cilaajka artoba khaasatan qaybta dumarka qaybta ragga waad aragteen qaybta dumarkii aad u yaraatay iyo dadkii aad u batay baabuurtii xataa dadka lagu adeegayay ama dadkii soo galay meel ay ka soo galaan ay waayeen waxaan rabaa markaa inaan ummadda muslimiinta aan la wadaago reerkan inay wax soo gaaraan ilaahay baa qadaray subxaanahu wa tacaala wuxuuna ilaahay sabab uga dhigay aniga cabdullaahi ahaan baa ilaahay sabab iga dhigay subxaanahu wa tacaala maadana ilaahay baa iskale xaqiiqatan marxadaha waaweyn lagu quraansaaraya rag iyo dumarka waxaa weye waa meel aniga aan maalgeliyey oo shakhsiyaddeeda ka cabdullaahi ahaan oo maaragtay aan maalgeliyey reerkan ilaah subxana wa taala soobteeda kusoo gaarsiiyey waxaan rabaa markaa qaybtan hadda la dhisaya dhulkaan u helnay xarunta hadda dhismaha cusub ka socdo aan idin tusi doono waxaan ugu talagalnay dumarkii baan ugu talagalnay insha allahu tacaala nabiga sala allahu calayhi wasalamna wuxuu yidhi المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن كالوحوية هاي سيد استاقلبوية هاي قال كيسي قارك كالبوحوجنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وشبك وحوز قلي بين أصابعه فريب وصايش وقلي مرقا يوم مؤمنين تمركا إسكاشادان دعاء أمتا مسلمين ما عليك دعاء إلهي نوغاسي عز وجل marka maadan ilaahay baa iskale waxaan rabaa marka ummadda muslimiinta in ay ka qayb qaataan halka ummadda loogu khidmaynayo ma ahan meel ani aan degayo ma ahan meel ani aan leeyahay ma ahan waa meel ummadda muslimiinta ay iska leedahay ee loo maaragtay dhisaya hoolka ay dumarka aad aragteen dhismaha iyo qarashka lagu bixiyo ana baxshay hadda dhulkan baan u helnay xarunta oo dhismaha ku socda meedi kamaana sheegin dadka meediyaha igala socda waxay moodaan in maaragtay halkii dollar maaragtay aan dadka ka qaadayo may walaal waan ka daayay dadka imanaya xarunta Muqdisho dadka imanaya xarunta dhexe magaalada Muqdisho iyo dadka gobolada ka imanaya iyo dadka degmooyinka gobolka Banaadir halkii dollar oo laga qaaday khidmada waan ka deynay oo maaragtay cilaajka imanaya waxaan u shaqaynaa si free ah laakiin dadka online-ka ee qurba joogta ah aalada Zoom-ka laga qoraaminayo ayuu laakiin waxaan ka qaadnaa khidmad yar baan ka qaadnaa waan ugu talagalnay markaa dadka injineerada ka shaqeynaya aalada Zoom-ka internetkii Zoom-ka lacagta lagu shubayay maaragtay leerarkii iyo korontadii xafiistan baa maaragtay online-ka keligiisii hadda loo sameeyey marka intaa baan rabnaa khidmada yar laga qaadayo ummadda loogu dabero maxaa yeelay dadkii reer Muqdisho xaqiiqatan way ka baxeen maaragtay ciriiriga ay ku jireen ama guriyihii waaweynaa ee lacagta dhowlka looga qaadanayay way ka baxeen ilaa ay gaartay xarunta qaybo ka mid ah inay ayadu iibsato xaqiiqatan taabaan u deynay marka qaybta online-ka waxaa ayadan aan ugu diri weynay waxaa weeye hawlo badan baa jira oo ayaga loo qabanaya loo baahan yahay lagu baxsho tasjiilaad lagu bixiyo ama qarashaad lagu baxsho marka dadka online-ka baabkooda waa gooni waddanka way ka maqan yihiin laakiin dadka waddanka gudihiisa jooga ee xaruntana imaanaya online-ka laftirkiisu dad baa jira Muqdisho jooga online-ka soo galaya dad baa jooga gobolada ayaga laftooda ay ku jiraan waxay kala xukun yihiin
qarash qaadida dadka qurbaha jooga bay kala mid yihiin haddaad joogto gobolada haddaad joogto muqdisho ee aad soo gaari kartid xarunta waad iman kartaa si free ana aniga kuu quraaminaya insha allahu tacaala wixii dawooyina markaa aad gadanayso unbaa qarashaad bixinaysa insha allahu tacaala waxaan idin tusaya markaa dhismaha cusub ee hadda xarunta loo dhisaya ee qaybta dumarka walaalaha muslimiinta ay muxsiniinta khayrka jecel ay wanaaga jecel ay doonaya inay ka qayb qaataan sadaqada jaariyada lidka korkiisii waxaa idinkugu soo qoraya insha allahu tacaala halka lidka korkiisii waxaan idinkugu soo qorinaya insha allahu tacaala lambaradii iyo akoonadii loogu talagalay in maaragtay xarunta loogu aruuriyo halkan wixii lagu dhisi lahaa xaqiiqatan lacagta haddeertaan ay gashay ku dhawaad waxaa weye waa lacag 7,000 waxaa weye madaxa way sii gelinaysaa maxaa yeelay meesha meel waxay ahayd bahgooyo ah dad khayr jecel wanaag jecel maaragtay xarunta maalin walba guuritaankeeda iyo maaragtay arkay baa maaragtay xaqiiqatan lagu sadaqaystay maaragtay khidmo yarna dhahay xarunta wixii awoodo ummadda laga qaado waxa laga sii marka waxaan u sheegnay in ummadda aan waxba laga qaadan marka ayaga la jeclaaday xarunta in maaragtay ay ummadda muslimiinta meesha loogu adeego ayaga maaragtay jeclaystay dhismaana ku socda hadda waad arkaysaan waxaan maleynaya taqriiban 23,000 22,000 baa xaqiiqatan ay ku kacaysaa dhismaheeda marka insha allahu tacaala Soomaali waxay tiraahdaa gacmo wada jirba wax ku gooyaan farkaliina fool ma dhaqdo xaqiiqatan bulshadaas tira badan aad arkaysaan qofka u adeega waa aniga meelaha ay hadda harsanayaan qofka dhisana waa aniga laakiin tan way iga weyntahay aniga awooddeedu way ka weyntahay waxaa maaragtay muhiim ah ummadda muslimiinta muxsiniinta khayrka jecel inay ka qayb qaataan wixii awoodaan ay ku darsadaan maxaa yeelay haddii la yidhi 23 ilaa 22,000 lagu qiyaasay anigiina aan idhi ummadda waxba kama qaadayo marka lacag la-aan aan ku quraan saarayo ummadda muslimiinta ayagaa laga rabaa inay dhistaan ayagaa iska leh anigu ma seexdo kuma soo hooyado markaan imanayana ummad joogto baan ugu imaadaa markaan tegayna ummad joogto baan kaga tagaa saa darteed marka waxaa la garan karaa ama qof walbana uu garan karaa guriga dadka jooga oo aad ugu timaado oo haddana aad oga tagta baa iska leh ayagaasaa degan marka gurigana waxaa iska leh dadka soo xulbani aan ugu imaanayo haddana aan kaga tegaya baa iska leh gurigan marka akoonadii iyo lambaradii waxaan kusoo qoraya insha allahu tacaala kor baan kusoo qoraya bilhalbaari haddana gudaha baa laidin gelinayaa bilhalbaari aad baad noo mahadsantihiin insha allahu tacaala daawadayaal sida idiin muuqato waa qaybta dhismaha ay ka socoto weli halkan ciid badanaa tuuran qolalkaas yaryarka waa goobihii xaajooyin oo musqulaha waaye oo suuliga sidaa u taqaanaanba halkaana laga galaa ganjeel weyn ayaa loo sameeyey qaybtan idiin muuqato oo hadda sidan u ah dhowr gaari oo caraha lagu buuxiyey dhagxaan badanaa hoos laga mariyey sidoo kale waxaa la guray halkan waxaa ku yaalay dhir badan ama geedo badan meel waxay ahayd keymaha oo sidii duurka oo kale ah shaqooyin badan baa laga qabtay shaqada haddeer meel fiican bay maray aasaaskii dhan baa laga soo gudbay waxaa la taagayaa hadda garbihii iyo in kor laga dado marka sidaas ayuu sheekha doonayaa in ay dadka la socdaan oo ay arkaan goobta ay shaqada ka socoto aasaaska intiisa badan waxaa laga dhigay shub ayaa laga dhigay meelaha qaar aasaaskooda waxaa lagu sameeyaa bulkeetiyo laakiin sheekha ayaa dalbaday in dhagax laga dhigo oo shub laga dhigo si markaas guriga dhismaha hoose uu uga adkaado una cimriyo waxaa ku guda jira halkan injineeradan iyo farsamayaqaanada hawsha ka wada sheekha ayaa keenay wuxuuna ka keenay meelo kala duwan oo xaafado ay degan yihiin
halkan ayay degan yihiin. Sheekha ayaana ka codsaday inta ay socoto dhismaha gurigan inay halkan ku sugnaadaan ilaa ay kasoo afjarayaan dhismaha halkan ama hoolkan in aysan banaanka uga bixin adeegooda iyo waxyaabaha tasiilaadkooda iyo qarashaadkooda waxaasoo dhan sheekha ayaa dhabarka u ritay. laakiin guriga waa qabyo oo wuxuu u baahan yahay in la dhammaystiro oo kaalin laga qaato oo inuu sii socdo kaalin weyn ay ka qaataan dadka Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah maadaama dad Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka imaanaya oo xanuunsan oo bukaan ah qaarkood musaafir ah ee halkan lagu quraamin doono qaybta kale hoolka intiinaan waxaan filayaa boqolkiiba 99 inaad la socotaan in qaybtaasi ay tahay qayb aad u ballaaran oo ku dhawaad 6,000 oo dumar ah ama 5,000 ee qaadayso haddana dadkii intaas waa kusii filnaa weyday marka baahi ayaa keentay in halkan loo baahdo oo la yimaado oo hool laga sameeyo oo aas-aaskeeda iyo shaqadeeda uu sidan sheekhu u galo marka sidaas ayuu bulshada ugu soo bandhigay halka ay wax marayaan sheekhana waa ka xarunta horteedu taagan yahay maalin walba subax iyo galab kasta inta dhismaha socoto halkan ayuu soo booqdaa wuu soo indhindeeyaa si mar walba uu ula socdo halka wax marayaan iyo shaqada inay gabagaba tahay